وحربنا إن إذن لو ذاقو إسبدل ككويمي حبكا أنتي أنا سوتشوي سجال صنع أيام مدلو ليراهدو حياها إن PhD ون يوحكسو شقيني وحربا إن مركا الرئيس إذن لو ذاقو بل إسبدل كموقدة كويمي هنانك إيه حبكا أي صوماليا ولا شقيسته عالم كأي صاحبة تاجرة بريه هراء استراتيجية دلاش الشيء اللي قصو قري شري إننا وينو دقيسين شرني بريه هراء حول ودانكو انت بدن أجنبي بواه بريه هراء لهانشية ميشري شرين لكن سند بسند كقدم بيا وحضرك ساعين حول ودان الصوماليات مهم معها وزيري ده هل كان فرديا مهمة وحوي حول ودانك هوشك عندك وهاي لقى صوب بلابو نكيد دلنا يرد أها السركال كأها إنه شرحي حوادلي وأن حسوستا معلم المها كم دبانو حفيز كرز الوزراء كشر إنه قبشة حوادلي بنلويني تلب مركينا نكفي كرنا وحكسي وين بيهي عاونا قل جدود كلا برتمه هذا أيها لجوة شهية عدو يد هي معركة سايد دوبلينا حوله وين اللي قفلي الله الربا أهمية مساجد كعلو جدود أولى هانا مرد ويدون ببيضتك الصومالية فاهمين هي يسبدل كمن تغدى اللجو كاني ورتمرك أوه الرسالة هي هون حريستو للي يردي هي الرجي هي النبضون دي نفتو ده أهوري إن جبن ماذا ما أنت عين ميسكال النمط مرتو الصوماليات بوحي ترى هذا جبن نمو بنان لقمه هلو بنسك تال وح جبن ماذا اللي يرى هذا وحملها يا الله تكسر قادرين يصير عقد بيها ما وحكلو يرتب عده لما هلو ودادو وحن عيده وهوشون النفط الله انتاقه هل كده سلادة دد dhalinyaro Soomaaliyeed iyo dumar wasiir Khadiija way naga tagtay wixii ay burdubayeen iyo hilib wadarkaysan Soomaa horta gobonimada iyaga noo keenay anagu matalaad baan u leenahay waxaan rabaa inaan una ducayno una mahadcelino Hodan Xasan oo markii hore hay'ada caalamiga ka shaqeyn jirtay ayaa hadda hawsha inoo soo bandhigtay oo waxay tiri anigu waxaan u aqaanaa stabilization markaan deegaanadii Soomaaliyeed ee wax soo saarka iyo bilicda iyo waxtarka lahaa tagi karo qofba waxba u yaqaanaa gobonimada iyo stabilization-ka anna waxaan u aqaanaa maalinka aynu qoliyahan walaalaheena caalamka ka kala yima in taageeraya aynu fasaxno oo inta aynu raacno aynu dal kale inaga ayaan daran u soo wada gurmano maalinkaasaan anna waqana oo la yiraahdo war Soomaalida stabilization-ka iyo halganka wax ka soo qabatay bal hal la waraysto hadda xaajo ugu bana ma he ayaama fog ma ay ahayn markii Soomaalidu ay Mozambique iyo meesha la yiraahdo South Africa iyo maxay Uganda iyo Tanzania u garnaqaysay ay nabadooda ka shaqeynaysay ayaama fog ma yahayn Soomaalida hadda la leeyahay cadawga hay iska kiciyaan waa Soomaalida iyadoo dawladda ay ka burburtay telecommunication-ka aad aragteen waa Soomaalida iyagoo bilaa dawladda jaamacadaha aad aragteen ee hoggaanka hadda halkan fadhiya soo saaray samaystay waa Soomaalida markay dhoftana adduunka rabta inay ama madaxweyne ka noqoto ama wasiir ka soo qaadatay ee senator maxaan saa u leeyahay waxa marmar badan dhagahaaga ku soo dhacaya qoliyo oranaya dagaalkii looma diyaarsana inuu dagaalkan armaan lagu degdegay war dagaalkan armaan sax ahayn waa dad yar oo kooban تقولوا وابا الشباب يجوا قوليها سالي أو ربنا دجال كينا اللي لكن ده كلام مرمر واحد مودة إنه مجد جلينا ين حلقن كل جوتشرو
وإن شاء الله تعالى هلقن كا رجع الضمر بقى نفط أهورن مقد مقلي دونه يودق سديت شركة قيعد شوقي ويرى أن يويل الشهيد وبوات وكل شهيدنا إنك عن كاي الله نحرست علمها قرنا ونفتيس أهوري horta Soomaaliyeed gurmadka u horeeya Ilaahooda ka sugayaan iyaga ayaana isu gurmanaya dadkan inala jooga ee mas'uuliyiinta ah ee safiirada ah ee inna taageera ciidamada inaga taageera ee humanitarian inaga taageera halkan aanu soo fadhiisano markaas aanu abaar ka hadalna horumar ka hadalna hadalka ugu wanaagsan waa ka gobonimada lagu helay waxaan rabaa markaa garab baynu dalbanaynaa iyo gurmad dalban mayno inaga isu gurmanayna sida ay qireen waxaan u maleynayaa mas'uuliyiinta Norway ka socday waxay yiraahdeen idinkaaba naga diyaarsan sababtaasina waxa weeye wasaaradihii oo wada socda mas'uuliyiintii oo wada socda ayaa ka shaqeynaya halgankii in la wada galo anagu marka gobonnimadayda iyo jiritaankayga baynu u diranaynaa dadka kale way nagu taageerayaan marka intaasaan rabaa inaan inagu israacno